أننا نناشد الله فسمى أهل الصومال الطيبين والكرماء يا رب. dadka ka soo barakacaya wadanka Suuriya ee sanadihii dambe ay hareeyeen dagaalada ayaa qaarkood soo gaaray dalka Soomaaliya si ay u helaan nolol dhaanta mida dalkooda ka jirta. magaalada Muqdisho waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida aadka ah ay u soo galeen dadkaasi kuwa oo ay haysato xaalad nololeed oo aad u liidata. ma jiraan goobo loogu talagalay hooy iyo cunto intaba. waxay yimaadeen dal ay qaxooti ku yihiin oo ay afka looga hadla garanayn. qaar ka mid ah qoysaskan ayaanu ku booqanay goobaha ay kaga sugan yihiin magaalada Muqdisho waxayna noo sheegeen inay haysato xaalad nololeed oo aad u adag. فوالله ما أتيناكم في زيارة إلى بلادكم. uma imaanin halkan dalxiis ee waxaan ka soo cararnay sawaariikhda iyo gantaalada ka dhacaya wadankeena. aniga iyo qoyskayga oo ka kooban 5 caruur ah ma haysano gogol aan ku seexano. caruurtayda waxay seexdaan dhulka. cunto ma haysano. waxaan deganahay guri kira ah. bil walba $300 ayaana laga rabaa mana awoodno. aniga waxaan ahay qof xanuunsanaya. gabadhaydan yarna way xanuunsanaysaa mana haysano qarashkii aan ku tagi lahayn dhakhtar. والله كنا نعيش في عز وكرامة في أرض الشام ولكن مأساة اليوم نحن نعيش بها يا رب. sidoo kale Muhammad isaga iyo qoyskiisa waxa ay ka mid yihiin dadka qaxootiga ah ee yimid halkan. waxa uu ii sheegay in qaar ka mid ah qoyskiisa uu ku waayay dagaalada Suuriya qaar kalena ay ku jiraan isbitaalada. عندني أهلي والله إخواني في سوريا. والله أخي منذ تقريبا أسبوع وهو يعمل سبحان الله وأصيب. ehelkayga qaar ka mid ah ayaa ku sugan dalka Suuriya. walaalkay isbuuc ka hor ayuu ku dhaawacmay dagaalada halka ka socda. waxa uu u baahan yahay qaliin ku baxaya $2,000. dhibaato ayuu ku sugan yahay. walaalaha muslimiinta ah waxaan ka codsanayaa inay iga caawiyaan lacagaha qaliinka loogu sameynayo walaalkay. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. sidoo kale dadkii aan la kulanay waxa ka mid ahaa aabahan Suuriyaanka ah Ali Ibrahim. waxa uu inoo sheegay in uu keligii halkan yimid qoyskiisana uu kaga soo tagay goobaha qaxootiga ee Suuriya isagana uu xanuunsanayo. waxa uu bulshada Soomaaliyeed ka dalbaday inay ku caawiyaan sidii uu qoyskiisa halkan ku keeni lahaa. نحن إخوانكم السوريين أصبحنا مهجرين في waxaan nahay walaalihiin Suuriya. waxaan ka soo haajirnay dhulkeenii. kuwan waa qoyskayga. waxa ay ku sugan yihiin Suuriya. dhibaato ayaa halka ku haysata. igu caawiya sidii aan halkan ku keeni lahaa. أيضا إلى المساعدة. Ustaad Xuseen Mayow oo ka mid ah mas'uuliyiinta ururka Asdiqaa al-Khayr ee horumarinta bulshada ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay gargaar u fidiyaan walaalahooda muslimiinta ee reer Suuriya kuwa oo u soo haajiray dalka Soomaaliya. saan ognahay dadkan Suuriyaanka wadad muslimiin ah walaalaheena ah. Suuriyan xaaladeeda maanta waa la soconaa halka ay marayso. dadkan shalay waxay ahaayeen dad nolol fiican haysta, dawladnimo haysta, wanaag haysta. ilaahay xukunkiisa ilaahay wuxuu qadaray in wadankii maanta uu noqdo wadan qubadaha dunida ugu waaweyn ay ku baratamaan dhibaatooyin badan iyo culeys badan ay ka jiraan. marka dadkan waxay maanta soo miciin bideen Soomaaliya oo ah dad aan ku luqad ahayn laakiin sababta ay u soo ordeen ma ahan way og yihiin Soomaaliya xaaladeeda inaysan wax badan aysan dhaamin laakiin sababta ay u soo miciin bideen ay waxay tahay inay yihiin dad muslimiin ah. سأزداد دت مسلمين تنوادد ولا لا سيد إلهي قرآن كأوكو شيء إنما المؤمنون إخوة إن شاء الله تعالى دت كاس أيان ربنا ما أنت إن شاء الله تعالى دت كمحسنين تا سومالي ذا إن جارسينو بل دت كاسي إن وحي كران كودا إن لجرجارو. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولكل المسلمين الفرج.